السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قاليقة سو دوادا maanta waxaan ka hadli doonaa fitamiin D-ga. Fitamiin D-ga waa fitamiin aad ugu muhiimsan lafaheena. Fitamiin D wuxuu aad ugu muhiimsan lafaheena. Marka intaas ayaa laga helaa caanaha laga helaa fitamiin D-ga, kalluunka laga helaa, qaar kamida waxaa laga helaa maxay ahayd jiiska laga helaa, qaar kamida maxay ahayd qoraxda ayaa laga helaa inta badan. Sidoo kale fitamiin D wuxuu u wanaagsan yahay lafaha siiba dadka waayeelka ah ama dadka caruurta iminka dhalanaya. Dadka waayeelka wuxuu ku soo fitamiin D-ga haduu ku yaraado waxaa jilcaya lafahooda, aad ayay u jilcayaan lafahooda, marka qoftu waxay u nuglaanaysaa inay jabto. Sidoo kale caruurta yaryar fitamiin D-ga haduu ku yaraado waxaa ku dhici kara cudurka loo yaqaano dalbada, lugaha ayay ka soo qalqaloocan karaan marka caruurta. Marka waa muhiim caruurta intay yar yihiin qoraxda in 30 daqiiqo camal intay qoraxda qabowdahay oo kaleeto loo soo bixiyo. Sidoo kale dadka waayeelka ahna socod sameeyaan, qoraxda ku socdaan xilliga galabtii ama subaxdii oo kaleeto, kuna dadaalaan waxyaabaha laga helo fitamiin D-ga. Wadamada qabowga ah dadka joogo aad ayay lafahooda inta badan u jilicsan yihiin oo qoraxda helin. Marka qoraxdan waa muhiim. Kalluunka, caanaha, maxay tahay jiiska, waxyaabahaas oo dhan aad ayay muhiim u yihiin. Inta badan maxay ahayd caruur ku dhalatay waan aragnaa lafa qalqalooca, sidoo kaleeto caruur dalba leh. Inta badan Ilaahay waa qadar Allah waayo wax walbo, laakiin inta badan waxaa ku yar sida la sheegay fitamiin D-ga. Marka asxaabi aan ku dadaalno, fadlan share channel-kan oo dhaha subscribe, share, comment-gana waa xaqiina. Waa mahadsantihiin.